xilliyada qaar dowladaha adduunku waxay qaataan go'aamo aada u xasaasiya una baahan markooda horeba inaan lagu degdegin wakhti dheerna laga fekero. go'aamada ayaa intooda badan raad weyn iyo saameynba ku yeesha dadyowga u dhashay dowladaha go'aamada culus qaadanaya. barnaamijkeennan diblomaasina waxaynu maanta ku qaadaa dhigaynaa dowladihii iyagu go'aansaday inay beddelaan magaalo madaxyadoodii. si kale haddaan u dhigana waxaa jira dalal badan oo caasimadihii hore ay u degganaayeen iskaga guuray sababo jira awgood. qaarkood waxay u baqeen amnigooda guud, halka kuwo kalena juquraafi ahaan ay uga carareen. calankani waa dowladda ruushka, waxaana in ka badan 7 jeer ay u kala beddeleen caasimadooda magaalooyinka Moscow iyo St. Petersburg. waana dalka ugu badan oo caasimadiisa hore iyo gadaal u rara, waxayna ahayd xilliyadii hore oo ay Yurub hareeyeen colaaduhu. dalka Turkiga sanadkii 1923 waxaa laga dhisay maamulkii ugu horreeyay ee Almaaniya. Mustafa Kemal Atatürkna waxa uu caasimadii dalka ka raray magaalada Istanbul isagoo u raray magaalada Ankara, ilaa ay haatanna ah caasimadda dadka Turkida ah. dalka Bakistan ayaa isagoo in ka badan 3 jeer beddelay magaalada caasimadda u ahayd. magaalada Karachi ayaa loo magacaabay caasimadda dalka markii ay gobonimada qaadatay Bakistan, waxayna ahayd ilaa iyo 1959 laga soo gaaro. magaalada Rawalpindi ayaa 59 ilaa 67 caasimad u ahayd Bakistan. xilli dambena waxay go'aan ku gaareen inay dhisaan magaalo cusub oo la yiraahdo Islamabad, taasoo ilaa iyo haatan caasimad u ah dalka Bakistan. waxayna ay ku sababayeen guuritaanka inay marbo u guurayaan meel dadkoo dhammi u siman yahay, dhexda dalkana ku taalla, cid walibana soo gaari karto. Denmark ayaa iyada caasimadeeda waxaa la oran jiray markii hore Roskilde. sanadkii 1455kiina waxay dowladda Denmark caasimadeeda u rartay magaalada Copenhagen aynu haatan ku naqaan. Burtuqiiska ayaa 3 jeer raray magaalada caasimadda u noqon lahayd dadka. xilligii ugu horreysana waxaa caasimad dalka ka ahayd magaalada Guarneris. xilli dambena waxay u guureen Combaria, halka 1255kiina ay u guureen magaalada ilaa iyo haatan caasimadda u ahayd Lisbon. dalka Morocco ayaa caasimad waxa uu ahaan jirtay magaalada Fez. 1912kiina waxay caasimadooda u rareen magaalada Rabat oo ilaa iyo maanta caasimadda dalka Morocco. Australia ayaa markiiba waxa ku soo baxaysa Sydney iyo Melbourne inay midoon caasimad tahay. xilliyadii hore waxaa si caasimad oo kale u shaqayn jirtay magaalada Melbourne, inkastoo aan dastuuri ahayn. dastuurka dalkaasuna waxa uu sheegayaa in caasimaddu ay 100 kiiloomitir oo kaliya u jirto magaalada Sydney. Brazil ayaa xilligii hore caasimadda waxa uu ahaan jirtay magaalada Rio de Janeiro, taasoo muddo 100 sano ka badan caasimad dalka u ahayd. 1970kiina waxay caasimadda u rareen magaalada Brasilia. sababta ay u rareenna waxay ku sheegeen in dowladda Brazil ay dhiirigelinayso in dadku ay degaan dhexbartamaha dalka. dadka Brazil ayaa ilaa iyo haatan waxay u badan yihiin dad ku nool magaalooyinka xeebaha ah. Rio de Janeiro waxay ahayd magaalo dad badan xeebna ku taal. inkastoo caasimadda loo raray bartamaha dalka, haddana weli dadka Brazil waa kuwo u badan meelaha xeebaha ah. dalka Jarmalka ayaan isaga marnaba caasimadiisa Berlin laga rarin, balse markii uu dhammaaday dagaalweynihii labaad ee adduunku, Jarmalkii galbeed waxa uu si ku meel gaar ah u degay magaalada Bonn. inkastoo dastuurka dalka lagu qoray markay labada Jarmal midoobaan Berlin inay sii ahaan doonto caasimadii dalka, haddana waqtiyadii dambe Bonn su'aal ayay ka keentay arrintaa. waxaana arrintaa go'aan ka gaaray baarlamaanka, waxaana dib loogu raray magaalada caasimadda Berlin, waxayna Bonn kaga adkaatay 18 cod oo keliya. dalka Myanmar ayaa caasimad waxa uu ahaan jirtay Yangon, haatanse waxay samaysteen magaalo kale oo la yiraahdo Yatembaw. magaaladaas ayay waxay caasimad uga dhigeen dalka sanadku markuu ahaa 2006. gebi ahaanna qorshaha waxaa fuliyey ciidamada militariga oo ka arrimiya dalka Burma, iyadoo aan waxba laga weydiin dadka u dhashay dalka. sidoo kale magaaladan ayaan ahayn mid dastuuri oo afti loo qaaday. dalka Mareykanka ayaan caasimadiisa marnaba laga rarin magaalada Washington DC, balse intii magaalada la dhisayay ka hor waxay dowladda Mareykanka ku sii shaqayn jirtay magaalada Philadelphia intii u dhaxaysay 1790 ilaa 1800. sidoo kale waxaa jiray magaalooyin kale oo dalka Mareykanka caasimad u noqday si ku meel gaar ah. xilliyadaasuna waxay ahayd xilligii dowladda Mareykanku ay cusbayd,
hadbana ay ka carari jirtay gumaystihii Ingiriiska iyo Faransiiska, waxayna dhowr jeer caasimadda dalka u rareen magaalooyin ka tirsan gobollada Pennsylvania, New Jersey iyo Maryland. balse magaalada Washington DC ayaa iyadoo mid la dhisay wixii ka dambeeyay magaalooyinka markay dowladda Mareykanku ku shaqayn jirtay. dastuurkana waxa ugu qornayd in la dhisi doono magaalada caasimadda ah. dalka Kazakhstan ayaa isagu dalka ugu badan ee caasimadiisa bedelay markii loo eego magaalooyinka. magaalo walba u guurana waxay noqotay mid lagu qabsado lagana qaado. xilligii hore waxaa caasimad looga dhigay dalka magaalada Orenburg oo haatan ka tirsan dalka Ruushka. xilli dambena waxay caasimad ka dhigteen magaalada Bishkek oo hadda caasimad u ah dalka Kyrgyzstan. xilli dambe waxay u guureen magaalada Orsiboda, waxaana uga dambeysay magaalada Almaty. magaalada Almaty ayaa iyadu ahayd laba magaalo la isku daray lana kala oran jiray Alma iyo Ata. 1993kiina waxay caasimad ka dhigteen magaalada Astana oo iyadana goor dhoweed magacii laga bedelay loona bedelay Nuur Suldaan, looguna magacdaray madaxweynihii hore ee dalkaas. dowladda Indonesia ayaa iyadu haatan waxay dhisaysaa magaalo caasimad u noqoto dalka. magaalada Jakarta ayaa ilaa iyo hadda ah caasimadda dalka, waxaana dowladda Indonesia ay magaaladaas uga baqday gebigeeduba inay degto badda ka hoos marto. sanad walbana 25 sentimitir ayay hoos u degtaa. waxayna dowladda Indonesia haatan dhisaysaa gacantana ku haysaa magaalo caasimad u noqoto dalka laguna magacaabo Nusantara. dalka Malaysia ayaa 1999kii ka soo raray caasimadiisa magaalada Kuala Lumpur, waxayna caasimad ka dhigteen Putrajaya oo wax yar u jirta magaaladaas. magaalada Putrajaya ayay dowladda Malaysia sheegtay inay uga dhigatay caasimad una dooratay dhulka bannaan ee hayso. magaalada Kuala Lumpur ayay dowladdu sheegtay inay ka weydo xafiisyo ay ku shaqayso iyo dhismayaalba, waxayna noqotay magaalada Kuala Lumpur magaalo dadkeedu aad u badan yahay. dalka Tansaaniya ayaa 1964 waxaa isku darsaday dalalkii la kala oran jiray Tanganyika iyo Zanzibar. si labadooda caasimadood aan midnaba loo siin caasimadda cusubna waxay isku raaceen magaalada Doma inay noqoto caasimadda cusub ee dalka. 1974 ayaa caasimad ahaan loo qorsheeyey, inkastoo dastuurka lagu qoray 1996. daawadayaal waxaa jira dalal kale oo inaan barnaamijkan weli ku xusin oo iyaguna caasimadahoodii iska bedelay. waxaynuna ka xusi karnaa dalka yar ee ku yaala bartamaha qaaradda Ameerika la yiraahdo Belize. sidoo kale waxaa jira gobollo badan oo ka tirsan dal oo iyagu magaalooyinkii caasimadaha u ahaa iska bedelay sababo jira awgood. barnaamijkeennan kan xiga waxaynu kaga hadli doonaa dalalka caasimadahooda ka raray badaha iyo dalalka ilaa iyo haatan caasimadahoodu ay saaran yihiin meel bad ah, taasoo aan lahayn wax ka difaaca cadowga haddiiba lasoo weeraro. daawada fadlan muuqaalkan la garay, sheer garay oo la wadaaga asxaabtaada.